وأنا مهد علينا يا دمان أنتي كسر شقيسي أما هالنقطة وجودي عليك جرسارك أو قدومي وهري حلاليها أما هالنقطة وزارتي كعاوني أما هالنقطة هيدها كله عالمية نقل شقيني إلا صاحله ولا هذه الله لا أذيك وفن أو قبل كجدو كتيرة سانو نهاي قرصاركو وواحد مهم سن دولة نمدو صدع ربنا كل سنة هاي وقرصاركو متكيه وفرنتا يهايد شرع دجنتا برلمانكا هي قرصاركا وانستيوشن مدح بنان والله بدا كله لمد ومدو هدينا قرصور هلين وحدنا يا دولة حتى نرش بني آدم marka la joogay miyiga ee dadka ayna dawladnimo xataa shaqo ku lahayn waxa jira waxa la xirbeegti odayaal culimo mas'alo walba waa la yaqaan cid loo diray haday sharaaca noqoto oo wax jaraaxa iyo dhaawac iyo diye iyo ku saabsan culimo loo diraa haday noqoto wax gar ah oo dadka dhaxmarayana waxa jirtay dad geed fadhiya oo u diri jireen dadku وذلك ميجا كنول أنا هيسنين مركا تسهيلات كان هي فاسيليتيشن كان هي ذلك بيالويك هي دولة النمد تام عليه هذا واحد قرنا سايني قرصور كوي هم إذا مرة لا جمار بكرين مرة ما أنا لا جمار بكرين ودحاضوا نورشة شريتان كدولة النمد هي حتى ولا نورشة عدد كلفت كان صوتها وحوور قويس كده حديث يخلاف كي ماده هذا أنا قويس كده هيس عدالة هلين وعوكلا قرقة وعدالة وسماية معني وحوي ده وحكسي وين وكلامه شيء كراي دولة دمدنا وحكب الله مسا وأسرة قويس كواسا كب الله مسا كرسور كبر كقويس كيبو قراي قويس كهو وقويس فاميلي وضي هو ليسي عروتيسي هل كاسا كرسور كأوبهنا وورس وحصور عمر هسه وحنا نقول سام مجتمعي هي حالة السنة وتيقام كون نقولش قف كبر كلا داريو مسؤولية بفولس ولي هذا العدالة سجلت سلا بيضاء ويا قف كعدالة دلوا سو دونني ما واحد قف كعدالة دلوا سو دونني هذا يسوي عدالة درسها أما واحد كانوا اللي يمادوا وادبعته كوين فساد كان لا ما نسوي كوي فساد قف كلا دون وجيساني مر ومسؤولية أمام الله اللي يدينه وحلا إذا كنا علينا يعني مصحف القرآن كامل نزل كها وكلام كرام واحد كلمة دي وحلت مع دارنا وأتقرأ كرتان معناها وسوين كريه يسير ويجري كريه تامر كواحد ربائنا تحدر كذا سويستانه أذكر الشيطان وشقاء عرس مجتمع أدربتان أذكرت أوقادان أو حكمتان أو حكسة ويسان مجتمع يصير لبسه فساد بدل كلمة ده sababta wadankan fawdu muddo badan ku soo jiray dagaal sokeeyaa ka dhacay systemkii dawladnimada burburay wax badan baa halaabay waxaad ogaataa mujtamacu laftirkiisu ma noqonayo dad kulligii saad ugu garqaadayso ay gartu kula timaado marka ugu horeysa lagu soo magacaabo waa lagu hambaliyay Soomaaliya lagu keeni hadiyad baa lagu keeni shalay wax lagu keenay ma aha هدية iyo Sooriyada lagu siinayo iyo waxa soo dhaweynta lagaga dhigay waa albaab naareed oo lagu furay albaabkii cadaabka yaa lagu furay waxyaalaha ugu badan ee dacwadda idin wajihi doonto waxa ugu badanaysa waa dhul iyo guri iyo sahaysasho way yaraan doonaan hadda waxyaalaha oo jaraaxa ka yimaada iyo nooc falalka noocaas ku yimaada ama qaar waxa laga maxkamadda ciidan bay u yimaadaan laakiin waxa idinku badan ama beer ha noqdo ama dhul banaan ha noqdo ama guri ha noqdo waa hantida noocaas ee guurtada mujtamac aan ku noolahay ee rabna inaan cadaalad u sameeynaay waa mujtamac 30 sano ku dhawaad waxa uu ku jira dawlad la'aan cadaalad la'aan kii xoog badan baa qoriga wax xukumay adiga marka qorigiina la arka adigiina aad maxkamadii timaadeen shaqada rabto inaad qabato salaantu way idinku badanaysaa ilaahay uga cabsada
garsoorka cadaalad buu u baahan yahay weliba waxa ugu badan ee dhibka hadda maxkamadaha yaalla dacwadaha 80% waa dhul wax kala jira dhul baa ugu badan waxaan u mahad celinayaa guddi macadka tababarka garsoorka oo aan leeyahay waxaan u baahanahay mar walba in la helo inta qofka dibad loo qaadi lahaa meelo kale lagu soo tababari lahaa inaan deegaanada isugu geyno oo tababaro la isdhaafsado oo weliba ay noqoto xataa maxkamadaha qaarkood in la qaado oo maanta maalan maxkamadda beled xaawaqada qolada joogta intii kuwa dhoobley loo geeyey la bedelo kiisaska dhoobley ay maanta reer beled xaawa qaadaan ilaan dacwadii waa waxyaalo galalkii furan yihiin kuwana ay qaadaan oo dad ka dhaga xiran waxay garanayaan markaa dukumentigan la raacayo dacwadu say u qoran tahay waxa laga raacayaa dadka aan garanaynin dee sidan ay wax u yiraahdaan bay u qaadayaan in xataa mararka qaarkood la isweydweydaariyo kiisaska qaarkood ay noqoto in loo adeeg isku dhafa iyo garsoor wada jiro xeelaalintiisa intii loo diro meelo inay shaqada qabtaan garsoorku waa laf-dhabarta dowladnimada waa laf-dhabarta ummadda iyo shacabka ha laga taxadaro cadaalad darrada garsoorka ka timaadaay iyo cadaalad darrada suldada marka cidda riyaasada haysa ka timaadaay way ka awood badan tahay midda ka timaada qofka shaqaalaha caadiga ama maamulka caadiga maamulka degmada iyo gudoomiyaha maxkamadda degmadu isku ciqaab ma aha isku awoodna ma aha kan gudoomiyaha degmada khaladka ka yimaada iyo kan maxkamadda khaladka ka yimaada isku culays ma isku miisaan ma waa meeshii loo soo cararayay masaajidka qayladu yeena ka soo yeedhi masaajidka qayladu yeena ka yeedhi war haddaad xamili weydo istiqaalo soo qor waxaa tahay awil resign waan ka soo tegay shaqadii waan wadi waaya duruufta ii diiday laaluush baa la ii keenay sababtaasaan uga tegay qidaar ka bax laakiin aakhira la-aan iyo adduun la-aan ha isku darsan kullamaa aada cunto adiga iyo ubadkaaga iyo reerkaaga ad ka tegaysa markaad isku daydo inaad musuq maasuq iyo eex iyo laaluush aad tiraado waxbaan ku qabanaya waxaad ogaataa luqmada xaaraanteed afka gelisaad ilmahaaga siisaay oo wax reerkaaga ku dambeyn doono mujtamacuna waa mujtamacaas fasahaaday ee qof walba maanta laaluushka loo keenayo laaluushku iyo in loo keenayo cunsurka soomaaliga jinsigu hadda kaga jira marka bal ilaahay idiin fudaydiyo waa ilaahayna waan idiin baryeynaa insha allah dad dhalinyaro aada u badan tihiin oo maanta doonaya inay waktigooda iyo mustaqbalkooda iyo aragtidooda intaba ay sii dheereeyaan ay wax badan ilaahay idiin fudaydiyo taasaan rabaa inaan intaa kusoo gebagabeeyo aad iyo aad baad mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullah